maareeyaha guud ee dekedaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Saciid Xasan Cabdilaahi iyo maayirka magaalada Cabdishakuur Cidin ayaa si diiran ugu soo dhaweeyay dekeda Berbera iyo magaalada wafdi ka socda hay'adda biyaha iyo fayadhowrka dalka Uganda oo lagu magacaabo NWSC kuwaasoo wada shaqayn la leh wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa. Wafdiga socdaalka ku tagay magaalada Berbera ayaa waxa uu helinayay mas'uuliyiin ka socda wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa. Markii ay wafdigu gaadheen magaalada Berbera waxaa halkaa ku soo dhaweeyay maareeyaha guud ee dekedaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Saciid Xasan Cabdilaahi kaas oo ka warbixiyay horumarka ballaaran ee ay ku tallaabsatay dekeda caalamiga ah ee Berbera oo qabata adeeg la mahadiyay. Dekeda Berbera ayaa muhiimad ballaaran u leh Soomaaliland iyo wadamada aan dekedaha lahayn ee dhaca gobolka Bariga Afrika. Welcome to Berbera Port. Uganda and Somaliland, they are very close, brothers. Maybe this is the fourth or maybe fifth time we have delegation from Uganda. Ku soo dhawaada dekeda Berbera, Uganda iyo Somaliland aad ayay isugu xidhan yihiin oo waxa ay leeyihiin xiriir walaalnimo. Waa markii afraad ama shanaad ee ayna soo booqdaan wafdi ka socda dalka Uganda. Waxaanu leenahay deked caalami ah oo aanu markii hore u adeegi jirnay Somaliland oo kaliya. Balse waxaanu ballaadhinay inay noqoto deked caalami ah oo ay isticmaalaan wadamada Saxaraha Afrika ka hooseeya ayuu yiri maareeyaha guud ee dekedaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Saciid Xasan Cabdilaahi. Waxaanu intaa raaciyay in dekeda Berbera soo jiidatay dekeda kale oo caalami ah. Maraakiibta waaweyn ee isaga goosha ayaa sidoo kale waxa ay badeecadaha containerska kula kala wareegaan dekeda Berbera. Dhinaca kale mas'uuliyiinta ka socda hay'adda biyaha iyo fayadhowrka dalka Uganda ayaa ka marakacay horumar ballaaran ee dekeda caalamiga ah ee Berbera iyo guud ahaan magaaladu ay ku tallaabsadeen. So as board we wanted to come and see exactly what's happening and also interface with the other waxa aanu halkan ku aragnay horumar oo ay qabatay dawladda Soomaaliland. Waxaanu idinka mahad celinaynaa soo dhaweynta ballaaran ee aad noo samaysay inkastoo ay dekedani aad nooga fogtahay ayay yiraahdeen wafdiga reer Uganda. sidoo kale maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamed Cidin ayaa wafdiga reer Uganda ku soo dhaweeyay qada sharaf. farxadeena ah inayna soo booqdaan wafdigan ballaaran ee ka socda dalka Uganda. markii koowaad waxaan ku soo dhaweynayaa magaaladan Berbera oo ah wadnaha Somaliland. waxaa la soo dhawaada dalkan Uganda iyo Somaliland waxa ka dhaxeeya xiriir aad u wanaagsan iyo wada shaqayn fiican sidii noo jecel yihiin maanaguna aanu jecelnahay. waxaan leenahay waa dalkeeni labaad soo dhawaada. dalkan wuxuu leeyahay opportunity far badan buu leeyahay. wafdiga ayaa sidoo kale markii ay ka soo laabteen gobolka Saaxil waxa ay booqdeen xarunta aasaarta qadiimiga ah ee Laasgeel oo ay ku dugan tahay taariikhda aasaarta qadiimiga ah ee qaaradda Afrika. Ana ku hadlaya afka wakaaladda biyaha Hargeysa waxaan si kaliya laaba ugu mahad celinayaa maareeyaha dekedaha Somaliland Saciid Xasan oo si kaliya laaba nagu soo dhaweeyay marsada Berbera. runtiina soo tusay goobo badan oo muhiim u ah horumarka magaalada Berbera iyo dekeda Berbera. waxaan sidoo kale u mahad celinayaa maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Cidin oo runtii si qiimo badan ugu soo dhaweeyay magaalada Berbera qad sharafna noo sameeyay aniga wafdiga ka socda wakaaladda biyaha iyo fayadhowrka u qaabilsan wadanka Uganda. abka Dahabalaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahabshiil Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahabalaas oo adeegyo dheeraad ah lagugu soo kordhiyay. ku bixi ku iibso ku kaydso Dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada. ku mahadsantahay inaad ka mid tahay daawadayaasha Xogreeb TV. ka mid noqo kumanaanka qof ee ku taxan Facebook-geena Xogreeb. follow soo dheh oo nagu soo biir sidoo kalena ha ilaawin share tayo comment kuwa noo mihin daawade waad ku mahadsantahay sida aad noogu xidhan tahay.